بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعثمان خيره waxaan halka kan duco iyo tacsiib aan uga dirayaa marxuum ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeydh ahaana madaxweynihii Khaatumo ururkii Khaatumo waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt marxuumka ra-iisul wasaarihii hore wuxuu ahaa nin qaran runtii nin aqoontiisa iyo waqtigiisaba Soomaali nabadeynteeda iyo ilaa iyo waqtigii carta labadii kun runtii ku bixiyey buu ahaa meelo badan iyo dhul badan nabadeynta Soomaaliya weliba gaar ahaan gobollada waqooyi iyo in dadku uu nabdo oo la isdhex galo kasoo shaqeeyey waxaan leenahay insha allahu biidni ilkariim ilaahay jannatul firdaws aclaa ha geeyo isaga iyo ummadda Soomaaliyeed ee sidiisaas oo kale ahayd ee dalkan iyo dadkanba wuxuu soo tartay waxaan leenahay ilaahay naxariis janno ha ka waraabiyo professorku shaqooyin badan buu soo qabtay dalka oo lama ilaawaana wasiirkii warshaduhu soo noqday 80-meeyadii maareeyihii guud ee warshadii isna biyaasa buu ahaa governor buu soo noqday dowladda hoose iyo arrimaha gudaha aqoonyahan siyaasadeed buu ahaa oo runtii aqoon badan oo xeel dheer leh wuxuu ahaa nin xog badan haya oo dalka iyo dibaddaba iyo cid walba oo maaragtay Soomaali arrimaheeda xog badan u haya ayuu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo nin Soomaali ka baxay buu ahaa runtii Soomaali ciddii wax garanaysa nin Soomaali ka baxay buu ahaa aniga oo marka ku hadlaya afka ummadda Soomaaliyeed ee degan UK gaar ahaan gobollada SSC ee professorku ka soo jeeday ee Buuhoodle iyo gobolka Sool iyo Sanaag waxaan leenahay halkan uga soo diraynaa tacsi tiiraanya leh waxaan u mahad celinaynaa runtii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo golihiisa kabinetka golaha dhaqanka mujtamaca reer Jigjiga garaad xaaji dool guud ahaan mujtamaca reer Jigjiga mujtamaca reer deegaanka Soomaaliyeed ee Somali State mahadnaq gaara bay leeyihiin runtii sidii ay ra-iisul wasaaraha markii horena caafimaadkiisii ugu dadaaleen markii dambana tii alla ku timidna ay sida wacan u maamuuseen waxaa kaloo iyadana mahad leh qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada golaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed soo dhaweyntii iyo aaskii qaran ee maanta loogu sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed ayaa iyaguna runtii wax la ilaawi kara aan ahayn guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxgaradka culimada cid kasta oo Soomaalinimo iyo qarannimo Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed ay wax u tahay waxaan uga tacsiyeynaynaa professorka waxaanu ilaahay uga baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad annagoo ah oo halkan ku idil runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer UK gaar ahaana jaaliyadda gobollada SSC ee Sool iyo Sanaag iyo gobolka Cayn ee Buuhoodle ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo xaasaskii uu ka tegay waxaan leenahay samir iyo iimaan buuxa oo saadiq ah gaar Allah idinka siiyo dhammaanteedna Allah inaga wada siiyo runtii aas qaran oo sharaf leh baa loo sameeyey waddankiisii iyo deegaankiisii iyo dadkiisiina wuu ku geeriyooday oo meel sharaf leh buu ku dhintay maanta waxaa ka darnaan lahayd meelaha qaarkood inuu maaragtay ay tiisii ku noqoto unbaa maanta ka foolxumaan lahayd meelaha qaarkood ilaahay baase u gartay sharaftiisa inuu maaragtay uusan meelaha qaarkood maanta lagu aasiro aan maaragtay cid gaara iyo magacyo gaara loo bixinin insha allah biidni ilkariim ehlu jannu ahaa khamiis buu dhintay maalin jimcaana wuu maaragtay kow bay u ahayd
sida marka culimada aan ka hayno qofka mu'minka ah ee maalintaas oo kale go'aa waa ahlu janno jannadii firdowsaan ugu ducaynayna professorka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.